wasaaradda shaqagelinta iyo qoyska iyo arrimaha bulshada gobolka Sanaag oo kaashanaysa qaar ka mid ah hay'adaha ka taageera dhinaca qulsaanka ayaa labadii toddobaad ee ugu dambeeyay guud ahaanba gobolka gaar ahaan magaalada Ceergabo ka waday howlo wacyigelineed oo ballaaran oo ku aadan dhinaca qulsaanka gaar ahaan dhinaca haweenka iyo carruurta iyo dadka nugul waxaana munaasabadii ololahaasi lagu soo gabagabeynay lagu qabtay hoolka Istanbul ee magaalada Ceergabo ayaa waxaa ka soo qayb galay aabarsaab ku-xigeenka gobolka mas'uuliyiinta wasaaradda shaqagelinta iyo qaar ka mid ah hay'adaha gobolka iyo waliba ururada bulshada ee gobolka Sanaag waxaana ugu horeyntii halkaasi ka kala hadlay isudwaha wasaaradda shaqagelinta ee gobolka Amuuna Cabdi Xasan iyo waliba Axmed Maxamed Axmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda shaqagelinta ee gobolka Sanaag ayaa fariin cod dheer u soo jeediyay guud ahaanba bulshada gobolka maanta waxaa loo qoondeeyay qofka bini'aadanka sharaftiisa in la ilaaliyo xurriyadiisa iyo cadaalad inuu helo qofka bini'aadanka maanta oraahdaas jirta ka leeyahay in qofka bini'aadanka ilaahay uu sharaftiisa uu ilaaliyo ilaahay baa sharafteena ilaaliyay haddaynu muslim nahay cadaaladdeena ilaahay baa ilaaliyay xurriyaddeena ilaahay baa ilaaliyay mahad oo dhan ilaahay bay u sugnaatay marka anigu dhammaan waxaan leeyahay bulshadeena wacyigelinteena iyo inaynu ka shaqeyno tacdiyada ka dhanka carruurteena iyo haweenkeena iyo dadkeena aynu ka shaqeyno mar walba aynu maanta ku soo koobin 16 casho kaliya inaan ku soo koobin ku mahadnaqaya dhammaan dadka kan fadhiya gaar ahaan hay'adaha iyo gudiyada xaafadaha iyo ardayda kala duwan ee social workers ka dhigta 16 cisho soo socday activity-yadii faraha badnaa ay qabanayeen wacyigelinadii ay sameynayeen hawlihii muhiimka ah ay qabteen aad iyo aad baan ku mahadnaqaya ana sidoo kale halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah madaxda hay'adaha iyo qaar ka mid ah ururada bulshada iyo mas'uuliyiin ayaa dhinacooda bogaadiyay wasaaradda shaqagelinta heer qaran iyo waliba mas'uuliyiinta gobolka dadaalada horumarineed ugu jiraan sidii loo ciribtiri lahaa tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo carruurta iyo dadka nugul 16 casho oo aynu activity badan iyo waxqabadyo kala duwan aynu soo wadnay ayaynu maanta soo gunaanadeynaa iyadoo maanta gunaanadkan ay ku beegan tahay maalinta xuquuqul insaanka oo ku beegan 10 December oo sanad walba si joogto ah loo xuso maalintan oo kale haddaan xog yar idinka siiyo maalintan aynu joogno 74 sano ka hor ayaa qaramada midoobay ay asteeyeen maalintan oo ay qoreen 30 qodob oo ku saabsan ilaalinta xuquuqda bini'aadanka iyo insaaniyadda guud 30 qodob waxa aasaas u ah in qof walba isagoo xor dhashay uu dadka kale uu la siman yahay isagoo aan loo eegin jinsigiisa qabiilkiisa iyo diintiisa toona innaga markaan kontakaskeena joogno inaan dadka la hayb soocin ayaa qodobadaas hoos galaya laakiin waxa ayna aan rabaa inaan maankiina ku tuuray maskaxdiina in 14 qarni ka hor ay diinteena islaamku ay jideysay xuquuqda bini'aadanka iyo insaaniyadda fariintan halka u gudbinayna waxay dadkeena nugul ama dadka la hayb sooco kale inala nool inaynu dadka xaq diiniyana ay waajib inaga saaran tahay inaynu ilaalino xuquuqda adigu leedahay weynaysan cid kale ku dhicin hadal oo waxaad sheegayso sheeg oo waxaad doonayso doono oo dalbo laakiin xaqaaga Soomaaliinta uu ka hor yimaado cid kale xaqeed ama hadalka aad tiri cid kale aad ku dulmido maalinta xaqaaga waa dhamaad marka hay'ada ahaan iyo dawladda iyo gudiyada waxaan ku boorinayaa inaynu barnaamijyadeena ku darro tacadiyada yaryar oo badan oo waliba goobaha waxbarashada ka dhaca ayaa jira oo waalidka iyo ilmihiisa ka dhaca laakiin nagu badanaa waxaynu xasuusanaa kufsi iyo jirdil iyo gudniinka fircooniga iyo kuwaas un baynu ku wareegnaa waxaan kaloo ku darsanayaa maadaama dad islaam nahay diinta islaamku waa dhammaystiran tahay qof kasta oo inaga mid ah wuxuu xaq u leeyahay in uu helo xurriyad inuu helo amni inuu helo markaa xuquuqdiisii nafsiyanka ahayd iyo tii kale uu ku lahaa dawladda intaba waxa kale aynu soo wadnay 16 cisho inaynu wacyigelin taasoo xaafad kasta iskuulaadka aan meelaha bulshada isugu timaado aynu ka sameeynay tacadiga ka dhanka ah carruurta iyo haweenka iyo dadka nugul qof walba Soomaaliland wuxuu xaq u leeyahay inuu si xor ah u noolaado inuu free from torture uu tacadi uu soo ka madax banaanaado dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shuruucda Soomaalilandna dhammaantood waa qaar ka soo horjeeda tacadiga iyo cid kasta jirdil loo geysto ama cid lagu tacadiyo waxaba jiray mar baan guriga ku tacadiyi jirno ilmaha yagaanu maxaan ku sameyn jirnay tacadi maskaxaaneed anaga fadhiis waxba garan maysid damiyo intii aan batay aan tareenada waxaan adoo ugu fiican adoo ugu horeeya
marka annagaaba kow iska bilownay tacadigii loo sheegay walaqad karamnaa bani aadama ilaahay baa ina karaameeyay ummad islaam oo noo karaamo leh anigu waxaan leeyahay nabigan aan ku sallino kitaabka iyo sunnada aan ku toosnaano taas baynu ku liibaanaynaa intaas baan ku soo koobayaa waxyaabaha inta badan prevensiga iyo la shaqaysiinta iyo ka warhaynta u baahan waxa ka mid oo kale xanuunadan ay ka mid yihiin HIV-ga iyo waxaas oo qofkii aan midabta koor iyo wax lagu samayn inta badan caafimaadka marka laga hadlayo waxaan leeyahay dadka darbi joogta iyo darbi jiifta ah aan tacadiga ka saarno inanta wax baratay iyadu waxay doonaysaa halkay gaar leed xafiis bad ka shaqayn gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaa wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska gobolka Sanaag iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Jaamac Maxamuud Warsame maanta waxaa loo qoondeeyay qofka bilaadanka sharaftiisa in la ilaaliyo xurriyadiisa iyo cadaalad inuu helo qofka bilaadanka maanta oraahdaas jirta laakiin tacadigu waxa weeyaan wax kasta oo haweenka qura uu lagu sameeyo haweenka oo dar weyno horyaalo ma garanaysaa dee oo waxaynu ka hadlaynaa oo macnaha ay ku soo baxeen laakiin tacadigu intaa uu ku sii bilaaran yahay tacadiga haweenka lagu sameeyo caruurta lagu sameeyo waayeelka lagu sameeyo barakacayaasha lagu sameeyo cidka waxay weeyaan waa dadka u nugul mayno hadeerto macnaha baa laga soo qaaday inay yihiin dadka u nugul waxaa ugu dambeyntii munaasabadaasi soo afmeeray barisaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Jaamac Maxamuud Warsame horta xuquuqul insaanka diinteena noo qeexday oo qofna xuquuq aanu lahayn heli maayo qof kasta xuquuqda intii ay diintu u qeexday baa sharciyan u go'an waxaanu isku baraarujinaa intii la raaco intii xuquuqul insaanka qof kasta oo insaana oo bilaadana ilaahay abuuray intii xuquuq uu siiyey in aan lagu xadgudbin ee lagu ilaaliyo isna aanu xadgudbin hay'adaha iyo dadka barnaamijkan dhiirigeliyana waxay uun ka qaateen qiyaasta ama xogta kala baxeen waxa weeyaan waa diinta muslim ahaan inagu mar walba xil gaar ah inaga saaran oo inagu diinteena jideysay xuquuqda si loo ilaalinayo Ali Aadan Daahir wararka Surud Media ee magaalada Ceergaabo